ambalyo ayaan leeyahay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ciida Carafo isla markaasina waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed. Haddaba hambalyadaasi kadib waxaan rabaa maxaa laga rabaa qofka muslimka ah maalinta ciida ah. Haddaba si aan wax u ogaano isla markaasina aan u ogaano u gudano ciida qofka muslimka waxyaabaha waajibiyan oo diiniinta ee nafaraysa iyo dhaqanka islaamkeena sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam aan u qaadno ayaan waxaan rabnaa in aan idiin soo gudbino mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed isla markaasina sharaxayo qaabka qofka muslimka oo u gudanayo ciida maalinta ciida ee Carafa. caawa markii iftaarka la gaaro oo dad muslimiinta ay afuraan kadib waxaa la bilaabayaa takbiirtii, waxaa la guda galayaa acmaashii ciida ilaa iyo bari subaxna axkaamtii ciida loo baahan yahay. axkaamtii ciida marka waa maxay? number 1 qofka muslimka ah ciida jooga waliba muslimiintu laba ciidood ay leeyihiin, ciidul fidri wa ciidul adha oo soonka ciida ka dambayso ciidul fidriga ah iyo ciidul adha oo xajki ka dambaysa. midaan ciidul adhaada ah waagu markuu bariyo qofka muslimka ah markuu waad inuu sameeyo san waxba cunin maxaa yeelay udhiyadii nabi sallallahu alayhi wasallam uu gowracay wax ka cunay khilaafan li ciidul fidri. ciidul fidriga nabigu wuxuu cunay timraad 3 tiro oo isdheera 5 4 5 7 3 oo uu ku burinahay laana bishii dhan soo soomanaa. tan waa cagsi qofku inuu san waxba cunin oo isagoo afkiisii qaba oo musallaha aado markuu salaadii ciid soo tukado soo laabtana udhiyadii uu bireeyay inuu wax ka cuno saasa sunna ah. sidaasoo kale waxaa sunna ah muslimiintu inay musalle isugu yimaadaan meel fadaa ah oo barxaad ah oo weyn in isugu yimaado oo bannaan lagu tukado. sidaasoo kaleeto waxaa sunna ah qofka wadadii uu u aaday musallaha meesha lagu tukanayo midaan ahayn inuu kusoo laabto oo nabi sallallahu alayhi wasallam saasuu samayn jiray inuu wadadii soo khilaafo. sidaasoo kale berri waxaa la sunneeyaa qof kastoo walaalkiisa muslim oo ka hor yimaado inuu yidhaahdo taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal. nabi maxamed iyo saxaabadu saas samayn jireen taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal in la yidhaahdo waxyaabaha bidcada ah iyo khuraafaadka iyo maahane sunnadii inta lagu adkaysta la yidhaahdo taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal. haddaba waa maqasheen ama waa daawateen sida uu sheekayna inoo sheegay aan raacno wadooyinkaasi iyo tilmaamahaas oo noo bixiyey wadaadkeena khayr allah siiye isla markaasina qof walba muslimna sidaasi sameeyo. ciid wanaagsan ayaa idin leeyahay.